goobilo garaada la saarayo waxa ay ka mid yihiin kumanaan ku cayroobay abaarihii kala dambeeyay ee Soomaaliya ka dhacay kadibna ku soo xirooday magaalooyinka iyaga oo faramaran balse haweenkan iyo qoysaskooda waxa ka badbaadshay in loogu yeero barakacayaal samaynta agabka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo noloshoodu ku tiirsan tahay farsamadan aniga hooyaday baa bartay hooyaday baan ka bartay saasay anaga noogu soo korisay oo noogu soo samayn jirtay sida ayadahay noogu gadi jirtay oo inagu beeli jirtay haddana anigii baa kuwii aan dhalay baan ku beelahayaa ilaahay baa ku mahadsan 65 baan jiraa caawa cidna lagama qarin hayo waxaan haystaa 12 canug baan haystaa iyo aabahay oo cad waa ku fiicannahay shilin baan shilin ku sii raadinaa dib ma qabno dhammaan alaabadaas waxa laga sameeyaa dhir ka baxda webiga daawo jiinkiisa oo ay Beledxaaw daris la tahay waxaana ugu badan dhirtaas wax laga sameeyo cawda ama mayrada qaar ka mid ah haweenkani waxa ay ka iibsadaan rag soo gura laakiin waxa jira kuwa gacan ka hela ragooda hawshan shaqada aniga iyo odagu waa isla wadnaa kareetu ii leeyahay mandheera baa nooga dirsadaa suuf baa nooga dirsadaa meeshaas ka soo raraa asagu waa xamaaliga koro keena anigana waxa weeye macallinkii sameeyay baan boos baan ka gadanay lacagta aan ka helnay booski aan ka gadanay waan degnay muddo dhowr sano aan markaan deganayn oo booski fadhinay waxaan ka dhisanay guri aan degno gurigi dabadeed markaan degnay waxaan samaysanay carruurtanada waxbarashaan ku xareysanay waxbarashadii ayada ahayd baan hadda ay noo bartaan quraankina way noo dhameeyeen iskuuladana way noo dhameeyeen farsamada ayada ahaan wali wadanaa shaqada iyada ahaydna wali waa ku toosanaa waan ku soconaa wali hadda kama aanan caajisin xirfada samaynta agabka dhaqanka ee magaalooyinka ku soo badanaya waxa ay ka soo yaraanayaan miyigii awal laga keeni jiray dumarkan bilaanaha baadiyaha waa laga samaysan jiray waa laga soo tagay hawsha iyada marka anaga jaanis baan u weynay guuray baan noqon xoolaha anaga aan jaanis aan u weynay ku samaysan marka alxamdulillah aan ka helnay degmada Beledxaaw in wana bilcaamaha ay ka soo gadana $2 baan siiyaa lama oga inta baahidiisu sii jirayso agabkan hidaha iyo dhaqanka ee dadka noloshoodu ku tiirsan tahay waxaase muuqata in ay ka nasiib badan yihiin boqolaal kun oo sidooda xoolo beelay kuna nool xiriir barakacayaal oo ku yaala magaalooyinka Soomaaliya Mohamd Dhalo